afku waa agabka koobaad ama aynu oran karno caqliyadda aynu kaga duwannahay xayawaanka. caqliyadda aynu xayawaanka kaga duwannahay afku waa ta keenta inay inoo turjuto caqliyadda. oo qofku wuxuu afkiisa wuxuu ku falayaa waxa weeyaan caqliyadda ku jirta fikirkiisa, hal abuurkiisa, ikhtiraacisa, waxa uu magaranaysaa mustaqbalkee soo socda ayuu ku cabiraa. afku waxa uu keenaa inay dadku isfahmaan, inay dadku wada dhaqmaan, inay dadku wada sheekaysan karaan oo ay fadhiisan karaan maqaaxiyo caynkan oo kala afafku waxay maraan afar marxaladood. afarta marxaladood waxa la yiraahdaa afkaas waa af nool oo aan looga baqanayn kontonka qarniye soo socda inuu baabao. marxaladda labaad waxa la yiraahdaa afkaas waa af sii dhimanaya. waa af leh astaamihii ama galdaloolooyinkii ama iimihii lagu yaqaanay afafka dhimanaya. marxaladda saddexaad waxa la yiraahdaa afkaas waa af dhintay oo macnihiisu yahay waa la helayaa dad ku hadla laakiin waxa ka madhay afka duxdii. marxaladda afraad waxa la yiraahdaa afkaas wuu dabar go'ay oo macnaheedu waxa weeyaan cid ku hadasha lama hayo, ereydiisi lama hayo, meel allaaliya meel lagaga dhaqmo iyo meel uu ka jiraa ma jiro. afkeenna waxa lagu qiyaasaa inuu marxaladda labaad haatan ku jiro oo ah marxaladda uu sii dhimanayo. afafku inay sii dhimanayaan mid ka mid ah sumadaha lagu yaqaan waxa weeyaan waxa la eegaa waxa la yiraahdo ereysaleed. ereysaleedku waa maxay? ereysaleedku waxa la yiraahdaa ashyaada ama ma garanaysaa waxyaabihii jiri jiray ka hor xadaaradda ay ka mid yihiin dhagaxa, geedka, cirka, dhulka, jirka ibni aadanka qaybo ka mid ah. ereyada ama magacyada uu aadmigaasi ula baxay ay Soomaalidaasi ula baxday haddii ay lumaan barkood waxa la yiraahdaa afkaas waa af sii dhimanaya. tusaale fiican waxa inoo noqonaya oo maanta erey ka mid ah ereysaleedyada oo inaga baaba'ay waxa ka mid ah ereyga wajiga la yiraahdo. af Soomaaliga ereyga waji fool baa lagu yiraahdaa oo waataynu nidhaahno wuu fool dhaqanaya, hebeluu fool xun yahay, ma garanaysaa fari fool ma dhaqdo. marka ereysaleed baa lagu qiimeeyaa oo ah astaanta ama sumadda koobaad ee lagu garto afkaas inuu sii baaba'ayo. waxa loo soo suuq geeyaa maanta boqolkiiba 90 waxa la inoo keenaa waxaynu cunna la inoo keenaa. waxa aynu cunna boqolkiiba 90 la inoo keenaya magacyo qalaad bay wataan. magaca qalaad baad qaadanaysaa. magacyadaasi ay wataan waa kuwa keenaya in af Soomaaligeennii markii hore sooca ahaa inay barxaan bay keenaysaa. haddii dadku hal abuur leeyahay oo uu dalag la soo baxayo oo isagu wax beeranayo oo waxa uu cunayo beeranayo oo waxa uu xidhanayo samaysanayo uma baahna inuu shaygan af qalaad u bixiyo ninkaas sameeyay baa ula baxaya erey Soomaaliyeed. xalku waa maxay haddaba? sidee looga bixi karaa? maalin kasta waynu tawaawacnaa, waynu calaacalnaa, waxaynu dhahnaa afku sii baaba'aya. afar qolaan jeclahay inaan fariin yaro gaaban midba in yar ka taabsiiyo. qolada koobaad waa waalidka. waalidku waxa uu ka mid yahay ama la gaarsiiyay martabad ah inuu ilmihiisa gaalaysiin karo ama muslimiin karo oo qofku fidra ku dhasho. waxaan leeyahay waalidku ilmihiisa ha u dhegtaagnaado, ilmihiisa ha u heelanaado. ma jiro iskuul ilmahaaga kuu baraya af Soomaaliga, ma jiro dawlad af Soomaaliga ilmahaaga kuu baraysa, ma jiro ciyaal xaafad ama dad bulsho oo kale oo ilmahaagu afkaaga ku baranayo. qofku hadduu qarankiisa joogo iyo hadduu qurbaha joogo labadaba waa inuu ka warhayaa ilmihiisa af Soomaaliga ku hadlayo. waa inuu waqti u sameeyaa, waa inuu hees hawleedyada iyo sheeko caruureedka uga sheekeeyaa, waa inuu waqti u sameeyaa oo ilmihiisa la sheekaysto oo dhaxalkii awowgii ugu soo dhiibay oo isaguna u tabiyo. micna male, faa'iidana male ilma aad bariiskiisa iyo sida uu wax cunayo una hubsato idinkoo hadhowto qofkaas markuu weynaado aydan is afgaranayn, kala qiyam aan noqonaysaan, kala dad aan noqonaysaan. micna male inaad ilmahaasi naaxsato oo aad bariis u siiso. qolada labaad aan jeclahay inaan fariinta faro waa wadaadada ama musheekhda inooga mas'uulka ah diinta Ilaahay kasoo nabigeennii suubanaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. waxaan leeyahay Ilaahay diinta Islaamka waxa uu keenay qalbiyada aadmiga, waxa uu keenay qof kasta oo ibni aadana loogu talagalay diinta. nabiga Ilaahay buu af carbeed ugu keenay isaga oo Quraana. xikmadda taasi ku jirtaa waxa weeyaan qolo kasta marka loo keenayo diinta ee la fahansiinayo waa in afkeeda loogu sheegaa. khudbad Madiina laga akhriyay ama khudbad Maka laga akhriyay haddii aad rabto inaad ka akhrido Hargeysa ama Burco ama gobol kale inaad ka dhex akhrido haddii aad jeceshahay khudbadu waa khudbadii dadkuna waa islaamkii laakiin dadkii baa kala duwan.
dadkii baa sida ay wax ku qaadanaya aanay ahayn qaabada ay qofka carbeed wax ku qaadanayo ama qaabada qofka Induneesiyaanka iyo Indiyaanka wax ku qaadanayo ee qaabad kale qofkani wax ku qaadanaya ma gabay baad weeyday 3 qarni bay ummadani gabiyeysay maxaa ku kalifay inaad gabay carbeed soo qaadato ummad 3 qarni gabiyeysay ma gabay baad ka dhex weeyday ma iyaga aanad aqoon mise suugaantooda aanad aqoon mise waxaanad aqoon dhaxalkooda maxaa ku kalifay adoo qof Soomaaliya u qodbadaynaya inaad gabay carbeed soo qaadato aqoontu waxa ay kamid tahay afka qalaad loo bartay af Ingiriisiga loo bartay af Carabiga loo bartay waxa weeyaan salkeedii waxa weeyaan inaad aqoon barataa laakiin aqoonta aad baratay marka ay kaskaaga iyo kashaada iyo aqligaaga gasho gaariga aad saaranaysaa waa gaari noocma aqoonta ka saaran af qalaad waxa weeyaan aqoon ka saaran gaari aanad lahayn aqoonta ka saaran ee aad ku cabiri karto af Carabigu waa aqoon ka saaran gaari carbeed marka waxaan leeyahay aqoonta iyo waxa aad baratay 5 PhD hadaad sidato 5 master hadaad sidato saaro gaari Soomaaliyeed saaro af Soomaaliga ku qor af Soomaaliga kuguma faani karaya anigu mana ku sheegan karayo aqoontaada iyo wanaagaaga iyo weynaantaada ma sheegi karayo haddii aanad iiga tagin buug iiga tagin Soomaaliya oo aad ku qortay dhaxalkaaga iyo aqoontaadii ereyga ugu dambeysay in leeyahay wax weeyaan ka shakhsi ahaan af Soomaaligu ma aha wax badan oo ka maqan waa inta aad taqaano oo aad dardargeyso waa inta aad taqaano oo aad ku dhaqanto waa inta aad taqaano oo aanad u baahan inaad af kale soo ergisato maxaa ka fudud lambarkaaga oo af Soomaali ku sheegto maxaa ka fudud erey yar oo kale oo adoo Soomaali u heri karaya aad Carabigiisii ka maaranto afku waa wixeenni inaga leh waa ahaanshaheeni waa wax isu ahaanshaheeni aynu dhiiri galino aynu dardar galino aynu ducufka iyo daranyada labadaba ka ilaalino waa mahadsantiin ma ka heshaa barnaamijyada Dalsoor ma danaynaysaa in la helo warbaahin Soomaaliyeed xor ah oo u adeegta bulshada fadlan taageer Dalsoor waxaad bixisaa $5 ama $10 bishii deeqdaada sidan aad u bixin kartaa